waxay ahayd marwo saalixad ah ninkeeduna waxa uu ka dhintay iyadoo 30 sano jir ah wuxuuna uga tagay 3 caruura gabadh iyo 2 wiil waxay ku bixisay dhalinyarnimadeedii iyo hantideedii tarbiyadooda iyo xanaanayntooda ilaa ay dhameeyeen jaamacadihii dhammaantood oo ay guursadeen waxay ku noqotay gurigii kaligeed da'deeduna markan waxay noqotay 50 sano labadii wiil waxay ula safreen xaasaskoodii dibadda waxayna ahayd inanteedu mid soo booqata hal mar bil kasta hooyadu waxay ahayd mid ka murugoota markay aragto sawirka gabadheeda iyo wiilasheeda baraha bulshada iyagoo ku sugan dalxiis amba xaflad iyagoon uga yeedhin hooyadood gabadhu waxay qeyl ka dhiganaysay wax kale iyadoo ujeedadeedu ahayd raaxaysi labadii namood miyaa hooyadood waxay ahayd mid aan waxba ka ogeyn arrinka safarkooda iyaga xaasaskooda iyo caruurtooda toona ilaa markay gaadhaan wadankii ay u socdeen kadibna ay soo garaacaan hooyadood si ay ugu sheegaan magaca dalka ay joogaan hadda weydiiyaan haddii ay wax u baahan tahay waxay ku odhan jirtay markasta hooyadood idinma raba idinka ilaa aad dareentaan qiimaha waalidka ee aan ku leeyahay noloshiina haddaan noqday qof weyn oo daalan oo aan socon karin laakiin ilaahay iyo fadligii waxaan ku raaxaysanayaa caafimaadkayga maxaad iigu diidaysaan inaan idinla qaato waqtiyada quruxda badan ee aad qaadanaysaan adig iyo caruurtaadu maalmaha ka mid ah way xanuunsatay hooyadii kamay helin garab ilaa walaasheed mooyaane waxayna kula talisay walaasheed in aanay caruurteeda u sheegin si aanay uga murugoon amba ayna uga xanaaqin walaashii way murugootay waxay ka murugootay hadalka walaasheeda xanuunsanaysa waxayna garaacday caruurtii oo dhan waxayna u sheegtay in ay hooyadood guursanayso way yaabeen dabcan waxayna si xanaaqsan u weydiiyeen sidee ayay u guursanaysaa iyadoo 50 sano ah haddaba maalmo kooban kadib markii ay bogsatay maamadii waxa uu imis dhexdeeda caruura iyagoo yaaban indhahooda iyo aragoodana cadho ka muuqato waxay ku yidhaahdeen maxaad hooyadii u doonaysaa inaad nagu ceebayso oo ay nagu majaajilaystaan dadku maxaad isaga natirisaa jiritaankayaga oo aad u rabtaa guur adoo daadan jira hooyadii waxay u eegtay caruurteedii si yaaban inta ayna u jawaabin ka hor habadii ayaab hadalka qaadatay oo tidhi hooyadiin waxba kooma oga guurkan iyo waxaan idin sheegay toona aniga sameeyay fikraddan si aad ugu timaadaan hooyadiin oo aad cafis u weydiisataan waxaadna ilowdeen dardaaranka ilaahiya kii rasuulka oo ahaa rida rab fii rida alwaalidayn wa sakhaduhu fii sakhadihimaa caruurtii waxay raaligeliyeen hooyadood waxayna noqdeen qaar uga yeedha xaflad kasta oo ay tegayaan iyo meel walba oo ay u safrayaan halka wiilkii weynaana uu xajka geeyey hooyadiis waxayna isku dayeen dhammaantood in ay farxad geliyaan وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا